jaamacadda American University for Human Sciences oo ah jaamacad heer caalami ah waxaa markii ugu horeysay ee farac ka furanaysa Soomaaliya. aqoon-yahano, macallimiin iyo arday ayaa ka qayb galay munaasabada lagu daahfurayay jaamacadda American University for Human Sciences xarunteeda Muqdisho. mas'uuliyiinta jaamacadda iyo qaar ka mid ah dadka ka qayb galay munaasabadan oo hadal kooban jeediyay ayaa amaanay qof walba oo kaalin ka geystay sidii jaamacaddan loogu furi lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. waxaan rabnaa maantay sidaad arkaysaan shicaarka ah American University for Human Science oo maqarkeedu weyn yahay Mareykanka بعد جهد iyo negotiation aad u dheer ka bacdi waxaa inoo suurta gashay in markii aan ogaanay in baahi dhab ah ay jirto Soomaaliya khaasatan gobolka Banaadir iyadoo insha Allah taala aan ku baahi doono faracyaha gobolada kale ee Soomaaliya inta dhan waxay soo jiitay number 1 markaan arko arday master ama PhD ka haysto jaamacad Mareykanka waxay tarayso waxay tahay dadka waxa lagu cabiro marka measurement la sameeyo qofkan xaguu jaamacad shahaada xaguu ka sitaa waana waxa keentay adduunka lagu qasbayo first wall second wall iyo third wall ka markaad ka wadato first wall shahaada aad ka wadato iyo kala duwan tahay markaad ka wadato first wall waaya dalka first wall ka waxay u wardaan in adduunka dominate gareeyaan sida taqaaniinba dalalka second wall-na waxay isku dayaan mar walba inay ayagu isku filaadaan meesha third wall-na uu badana u ordo deenta iyo loans and aid ka ugu badan inuu helo. madaxa jaamacadda American University for Human Sciences xarunteeda Muqdisho Axmed Cabdirasaaq Cabdullaahi Qamsa ayaa sheegay in jaamacaddani ay fursad u tahay ardayda Soomaaliyeed. jaamacadda waxay kala bixinaysaa undergraduate-ka oo bachelor-ka ugu horeeyo oo ay jaamacadda bixinayso takhasusaad kala duwan. jaamacadda waxay bixinaysaa graduate course oo laba qayb ka kooban, master degrees oo 13 course ah oo baranjiga xamar loo ogolaaday 13 course ee baranjiga xamar loo ogolaaday ama Soomaaliya ama East Africa 13 waxay ka kooban yihiin laba hab oo ay ku noqonayaan 26 Aways Maxamuud Julcow, Home Cable TV, Muqdisho.